Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Cumar Maxamed Cali, kuna soo dhawaada Kulmiye Private School. Waana luqadda Ingiliishka iyo casharkeena maanta. Insha Allah casharkaana waxa uu noqonayaa cashar markaa la socodsaday ee markaasi codsi ku yimid. Codsigaasna insha Allah waxaad ka arki doontaa casharkii ugu dambeeyay ee police sentenceska ayaana lagu soo qoray. Waxaana markaa la yiri inoo soo duub advantages and disadvantages of social media. Faa'iidada iyo khasaarada uu leeyahay social media ambaraha bulshada. Marka sidaa daraaddeed saaxiibayaal waxaan idinkaga codsanayaa muuqaalka inaad like gareysaan, hawada inaad gelisaan idinka raba insha Allah. Kuna soo dhawaada halkaa oo kasii faahfaahsan. Topic mawduuc about ku saabsan advantages faa'iidada and disadvantages iyo khasaarada of social media ee uu leeyahay social media ama baraha bulshada uu leeyahay. As we all know, sidaan dhammaanteena ku war ama ka warhayno, as we all know, sidaan dhammaanteena ka warhayno, social media ama baraha bulshada became wuxuu noqday a part of our daily life, qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena. Because sababtoo ah we use a lot in badan waan isticmaalnaa social media. Balse today maanta I will share you waxaan idinla wadaagi doonaa advantages faa'iidada and disadvantages iyo khasaarada of social media ee uu leeyahay baraha bulshada. Haddaba waxaan ka bilaabayaa faa'iidada uu leeyahay. Advantages of social media faa'iidada uu leeyahay baraha bulshada. Kow, waxaan soo qaadanayaa 3 lambar ayaan ka soo qaadanayaa faa'iidada, khasaaradana waxaan ka soo qaadanayaa 3 number. Marka numberka ugu horeeyo anagoo ka hadlayno faa'iidada uu leeyahay. Useful for education purpose. Adigoo u isticmaalaya ujeedooyin waxbarasheed. Social media ambaraha bulshadu allows you waxay ku ogolaanaysaa ama wuxuu ku ogolaanayaa to reach inaad gaarto a large audience dhageystayaal badan and build aad dhisto your brand astaantaadan aad dhisto dhageystayaal fara badanna aad gaarto ayuu social media ku tusaya ama ku muujinaya ama ku ogolaanaya. You can learn more something, waxyaabo fara badanna waad baran kartaa, or ama more skills, xirfado fara badanna waad baran kartaa from social media aad ka baran kartaa baraha bulshada. Midaasina waa shay aad iyo aad u qaali ah oo markaa waa faa'iidada ay ka mid tahay inaad wax badan ka barato social media. Maxaa yeelay dhalinyaro fara badan ayaa waxay ka barteen luuqado, skills, xirfado, waxyaabo fara badan. Numberka labaad, build your brand, dhis astaantaada. Social media helps you wuxuu ka caawinayaa baraha bulshada build inaad dhisto your brand astaantaada by interacting adigoo la falgalaya with others kuwa kale and sharing aad la wadaagayso interesting facts arrimo markaasi xiiso leh, arrimo ama ujeedooyin xiiso leh about ku saabsan adigoo kala wadaagaya yourself naftaada ku saabsan. Adigoo dadka la wadaagaya waxyaabo fara badan oo naftaada ku saabsan ayaad ku dhisi kartaa. Waxaa la yiraahdaa build your brand astaantaada. Midda saddexaad ama lambarka saddexaad, reach a large audience, gaarida aad gaarayso a large audience dhageystayaal badan. Social media ambaraha bulshada allows users wuxuu markaasi u ogolaanayaa users isticmaalayaasha to easily si fudud connect inay la xiriiraan and share ay isla wadaagaan information faahfaahin with their friends ay la wadaagi karaan asxaabtooda or ama followers kuwa ku xiran ee followerska ah. Millions of people, milyanaad dad ah waxay isticmaalaan social media ay isticmaalaan every day maalin waliba. Making it easier for business waxay fududaysaa ganacsiga like yours, sida ganacsigaaga oo kale. Social media ganacsigaagana wuu fududeeyaa to find si uu helo ganacsigaaga potential customers online.
macaamiil oo muhiim ku ah si online ah adigood u helayso ayo social media haddana faa'iido kugu leeyahay. Disadvantages of social media, qasaaraha uu leeyahay social media. Qasaarihiisa ayaanu ka hadlaynaa, faa'iidada ayaan ka soo baxnay, qasaaradana waxaan soo qaadanaynaa ayaguna 3 number. 1 numberka ugu horeeya, spending a lot of time, ku kharash gareynta waqti fara badan on social media ee lagu kharash gareeyo baraha bulshada. Social media and baraha bulshadu is addictive, waa la qabatin and can consume, wuxuu qaadan karaa, waa la qabsasho macnaha. Addictive waxa weeye la qabsasho, haddaad la qabsatana and can consume, wuxuu qaadan karaa your time, waqtigaaga, if you don't have any other interests, haddii aadan wax dan ah ka lahayn social media, ama dad dan u soo galayn, iska soo socoto TikTok iyo Facebook aad iska wareegto, kaliya wuxuu cunayaa waqtigaaga. Numberka 2, fake news, wararka been abuuradka ah. Fake news stories, sheekooyinka been abuuradka ah, have been making, ayaa beryahan headlines lately, ayaa beryahan soo ifbaxaya oo soo baxaya oo soo gurmaya, okay, sababtoo ah to their viral nature, dhaqankooda oo viruska ah, ayay waxay rabaan dadka inay la wadaagaan oo aanan micnaba lahayn, inay dadka markaasi uga been abuurtaan, oo mar waliba adiguna aad ku daabayso ama aad maskaxdaada ku sihayso warar fake ah oo markaa aanan jirin. taasina waxay kugu tahay mid khasaare ah ugu markaa. Midda 3, social media can cause sleeplessness, okay. Social media, baraha bulshadu, can cause, wuxuu sababi karaa ama kugu sababi karaaba sleeplessness, hurdo la'aan. Studies, daraasad la sameeyey, show waxay muujinaysaa when people spend, marka ay dadka ku kharash gareeyaan too much time, waqti aad u fara badan on social media, ay social media ku kharash gareeyaan, waxay muujinaysaa daraasadaas they have trouble, inay dhib ku qabaan getting to sleep, inay hurdo helaan, hurdo helidii ayay dhib ku qabaan. casharkeena halkaas ayaanu markaas ku soo afmeerayaa. Waxaan filayaa in la fahmay casharkaasna insha Allah. Mid waliba wuxuu qalbigiisa uu ka hayana waa inala soo xiriiri karaa insha Allah, saan idinku soo gudbino sida